daawadayaal meel kasta aad joogtaan kulanti wanaagsan meel kasta adduunka naga daawanaysan waa barnaamijkeeni socdaalka Royal oo aan markasta idinku soo qaadano waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibsan ama waxyaabaha ugu naxdinta badan inteenan barnaamijka daawadayaal u gudbeen waxaan idin xasuusinayaa markasta haddii aad aragtaan waxyaabaha idin farxad geliya ama idin naxdin geliya xageesa noogu soo diraysaan waxaad noogu soo diraysaan emailka shaashada ku aragtaan ayaan idinka codsanaynaa daawadayaal waxaan u gudagulaynaa barnaamijkeena iyo maanta waxaan idinku haynaa waxyaabo aad uga nixi doontaan ama waxyaabo idinka farxad geliyaba markasta waxaan soo qaadanaa waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibsan ama ay dadku aadka ula yaabaan aan barnaamijkeena bilaabano waxaan soo qaadanaynaa yaxaas markasta waxyawanada la soo qaato ama ugu cajaa'ibsan buu kamid yahay yaxaasku daaima wuxuu galaa harooyinka dadba la hadlaba dadku dhahaan laakiin waxaan idin soo qaadanaynaa yaxaas inta laga soo saaray meeshuu ku jiray ama haradu ku jiray laga soo saaray dad ba ku ciyaaraya waxay isku dayaan inta ay afka u kala qaadan yaxaaska ay madaxa la galaan dad ba usoo daawasho taga lacagna ku bixiya balse hadaba ninkii ugu talagalay inuu lacag dadka kaga gurto yaxaaska intuu afka u kala qaado madaxa uu la galaya balse miyuu cunaya mise uu ka badbaadaya yaana sheekadayda ka hor dhicine bal daawasho wacan daawadayaal waxaan maleeyay wali dhacdada hore inaad aad ula yaabteen balse idinka garanaya jawaabtu waxay ahayd haddana waxaan soo qaadanaynaa mas inta uu gabadh isagu cuno calooshiisa geeyo adoo arkaya haddaba dadka qaar waxay ku leeyihiin waxni masba maaha waa bombolo yaana sheekadayda ka hor dhicin bal yaxaaskan iyo gabadhan iyagu bal waxay yihiin idinku noo sheega ee daawasho wacan waxaan maleynayaa daawadayaal dhacdada hore waxay yihiinba ama bombalahaada midliba dhacdadii hore waxay doonto baa noqotay idinkunba jawaabta haya waxaan soo qaadanaa tii hore mid lamida haddaba tii hore waxay ahayd idinka jawaabteeda haye tani waa maxay waa isla maskii intuu qof qabsado dhuuntiisa siduu u cunayo ama dhuuntiisa u marinayo adiga arkayee bal ha ka nixine daawasho wacan waxaan leenahay ilaahu naga badbaadi maska sidaas oo kale isagu dadka u cunaa iminkana waxaan soo qaadanaynaa waxaan horay u arki jirnay dad ama farshaxanta qora oo iyagu meelaha wax lagu qoro oo dad ku takhasusay wali ma aragteen xayawaan isagu intuu qalimada oo kalaarada la soo qaato isagu wax qorxinaya ama midabaynaya ama kuba qoraya isagu midabaysan hadaba waa daayeerku muxuu midabaynaya muxuu soo qoraya isn't impossible, even though some at first are a little clumsy. In general, you only have to show them what to do, and they imitate. A few sessions and a little advice are all that's needed to create an artist devoted to a very particular art.
waxaad arkaysaa xayawaankii ama daayeerkan waxaa la barayaa sida wax loo qoro ama wax loo midabeeyo. waxaa dhici kartaba dad waalidiinta ah inay ubadkooda waxba aysan barinba. halkana waxaad arkaysaa gaaladii waxay barayaan xayawaankii sida wax loo qoro ama loo midabeeyo. waxaana dhici karta ilmuhu markuu yar yahay isagoo aan caqliba lahayn in lagu barbaarin karo sida wax loo qoro ama wax loo midabeeyo. waxaad arkaysaa daayeerkan isagoo xayawaan ah ayaa la barayaa sida wax loo qoro, loo midabeeyo, loo kalar gareeyo. waad u fiirsan kartaa, ciyaalkii baa daawanaya, ubadkii baa daawanaya. waalidiinta qaarkoodna iskuma wada taxallujinaynay ubadkooda baraan sida wax loo qoro. waad arkaysaa xayawaankii si wax u rinjeynayo, waa la tusayaa sidaa yeel baa la leeyahay, sidaa sidii uun buu yeelayaa. waa xayawaan isagii baa markaa maanta dambe isku taxallujin keligii wax qoro. marka waalidiinta laftigood waa inay iyaguna isku taxallujiyaan ubadkooda sidii iyagoo yaryar ay u bari lahaayeen sida wax loo qoro ama wax loo midabeeyo ama loo kala gareeyaba. kadib markaa iyagu weynaadaan iyagaaba isku filnaan karaba. daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena socdaalka Royal oo aan daa'iman markastaba ku soo qaadano waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibsan. markastaba daawade waxaad arki kartaa wax aanan TV-ga laga soo diin oo adiga ku cajiib geliya ama aad la yaabtid. waxaad nooga soo diri kartaa saan annana ummadda kale ama Soomaalida kale ee daawanaya TV-ga aan ugu soo bandhigno emailka shaashada saaran. markasta daawadayaal aanu idii soo diin waxyaabo aad ka naxdaan ama aad la yaabtaan. dhacdada ugu dambaysa waxaan ku soo qaadanaa wax aad ku faraxdaan ama idinku qosliyaba. markastana waxay u badan yihiin kamarada qarsoon. bal maxaan idii soo qaadan doonaa horena waad u naxdeene bal iminka iyo waxyaabaha idinku qoslin doona iyo kamarada qarsoon nala daawada. daawadayaal waxaynu soo gabagabaynaa barnaamijkeena socdaalka Royal oo markasta aan idinku soo qaadano waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibsan ama waxyaabaha ay dadku laba yaabaan. markasta waxaan idin xasuusinaa inaad emailka shaashada saaran aad noogu soo dirtaan wixii adiga iyo dadka kaleba ama ay ku farxaan ama naxdin geliyaba. barnaamijkan waa barnaamij markasta aan idin soo qaadano waana socdaalka Royal aan markasta ku tagno adduunka dacaladeeda oo dhan. intaanu barnaamijkan barnaamij nabad aynu ku kulmayno waa aniga oo Caawil Cagaare waxaan idinkaga tagayaa sida iyo kulanti dambe.